الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal si toos ah aynu aadi doonaa garoonka Wembley halka uu ka dhacayo mid kamid ah kulamada ugu adag usbuucii finaalada weeyaan usbuucan iyadoo dhammaan maanta ama ilaa caawa la dheeli doona finaalada horyaalada kala duwan ee Yurub waa macnaha kooxaha soo qaada horyaalka iyo koobabka dalka Jarmalka la dheeli doona sidoo kale waxa la dheeli doona Faransiiska Belgiumka Turkiga usbuucan la dheelay sidoo kale waxa la dheeli doona in horyaalada waaweyn Talyaaniga toddobaadkii la soo dhaafay Juventus qaadi Coppa Italia Premier League ayaana caawa ama maanta lagu kala bixi doona todobadii fiidnimo kooxda ku guuleysanaysa ayaa si la ogaan doona Man City Man United qabsatay kubadda derbiga ayuu noqday Wembley ayaa lagu ciyaari doona Man United waa koob la'aan halka Man City horyaalkii ay qaadeen ayuu dib loo soo doona amaahdiisii seasonka waa dhamaatay kooxda soo magacaawday mar rabna ay dhaheen waa kan Alexander Garnacho United waa idaliyeen goolkii koowaad ee ciyaarta Garnacho qaadaad ay galeen daafacada United City ayaa lagu ciqaabay Garnacho ayaa dhaliyay goolkii koowaad ee ciyaarta Alejandro Garnacho goal Ever United benefits from one of the craziest FA Cup final goals you'll ever see. Well, I'll say it over and over again. Why does the goalkeeper want to come and get involved with this? It's a battle between Garnacho and Gvardiol. Goalkeeper just stay in your penalty box and let your centre-half or your left-back head it back to you. As soon as he started to come, you can see there's going to be a problem. This is a good pass to start with. That started it all off. Gallo, who you talked about. goolkii dhaliyay United offside ayaa loo fiirin doonaa inkastoo daafac uu ka dambeeyo haddana Van Bissaka Garnacho waa kuwan laba gool Ever Tonil Kabimono United Tonil maanta waa maalintii United waa maalintii Reedy Felice Tonil Ma United To the holders. City this time, Stuart, cut to ribbons. Well, the credit has to go to Manchester United here. Really good understanding of what they're trying to do. The switch of play out to Garnacho. They create an overload on that far side. Gvardiol can't get too tight. And then the pass from Bruno Fernandes is absolutely brilliant at the end of it. Here's pass from Rashford. It's a brilliant one. Now they're stretched, Manchester City. Man City laba gool Ever lagu leeyahay ma soo laaban karaan Garnacho caawa aad ay u shaqeeyay ciyaaryahankan laba gool Ever ayaa lagu leeyahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City wax kasta oo yasaan wax kasta oo bahdila United maanta mustaqbalkooda ay is badbaadinayaan kooxda kubadda cagta United laba gool Ever ay leeyihiin laba gool Ever Man United ayaa iska leh hamoodin inay City ay leedahay laba gool United ayaa labada gool iska leh laba gool Ever Kabimono ayaa dhaliyay goolkii labaad Garnacho ayaana goolkan aad ugu soo shaqeeyay si tactical oo counter attack oo rogaal celisa ayaa loogu badinayaa kooxda kubadda cagta City laba gool Ever kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iska leh ka qaatay Hoyland waa kan mar kale waa kana kubadda waa uu ka qaatay Hoyland waa kana mar kale Ambrad waa uu qalday inay haystaan ayaa u fiicneed laakiin foul u fiicanba waqtiga intaana lagu dhameynaya way dhamaatay 97 daqiiqo 97 daqiiqo way dhamaatay waxa dhiman oo kaliya in garsoorka uu ku dhawaaqo in United ay ku guuleysatay foulkaas yellow card ayuu xitaa ku qaatay ciyaaryahanka lagu magacaabo Julian Alvarez United ayaa xilli ciyaareedkan ku guuleysanaysa koobka FA Cup-ka markii 12aad waa markii 13aad taariikhdooda halkan daqiiqo waa biicabaal intii bedeladii iyo kornooyinkii weeyaan United ayaa ku guuleysanaysa FA Cup-ka City sheekadoodii waa isku dhamaatay back to back 6 sano ugu dambeysay ciyaarta garsoorka ciyaarta uu ku dhawaaqi doonaa United ayaa qaaday FA Cup United ayaa ku guuleysatay FA Cup-ka 2024 laba gool waa u hambaliyay Pep Guardiola
mustaqbalkii Den Haag ayaa soo dhammaaday waase uu badbaadiyey kooxda United waa kulankiisii ugu dambeeyey oo uu faraxsan yahay milkiilaha kooxda iyo sidoo kalena dhammaan xidigaha kooxdaasi hambalyo United laba gool iyo gool ayay ku qaadeen Where was the organisation for much of the season? Ten Hag will say they got two centre halves out.